iskama taageeri karno uun tareen meel uu ku dhamaado aan la garan kareynin sidaa darteed mawduucan waxaan soo qaatay tala ahaan maanta Soomaalida waxgaradka Soomaalida maanta in lagu farxo in microphone haysto dadka kala qaybinaya maaha whatever that game is over haddaad maanta wax abuurayso ama hadlayso war shalay cabdiile markuu joogay maad hadashid dadkii ugu aamusnaanta badnaa ugu cabsida badnaa yaa maanta kurka la soo wada baxayo doonay inay dadka mar dambe hadana dib ay dhibaato u geliyaan oo kooranaya aan dagaalano aan maxay sameynaa aan kan waxayn xagaan u dagaalana waxaan u dagaalamayna waan bahalnay waan wanaajisanayna nabad bay ahayd nabadda inaana naga dheeliin ayaan u rafaadayna u soo joodayna marka wax loo baahan yahay waxgaradka Soomaalidu hal arrin Soomaalidu hadii ayna fahmin waxa ma noqon karto waxaad arkaysaa qofkii xumaa ee shalayna dadka isku dirayay ama shalay markii dib ku jiray aamusnaa ay guriga ku gabanayay oo maanta hadana wanaagga laftiisa la dagaalamaya waxaad arkaysaa qofkii xumaa ee beenta sheegayay dadka isku dirayay markuu u yimaado oo damco inuu wax ii sheego xun waa inay raahdo wararna gala tag dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida jirta waxa weeyaan qofkii runta looma sheegayo ninba xumaan soo qori waxun buu ka hadli waad aragtay inay dhibaato tahay inay fidna tahay waa la guubaabin moral baa la siin waxa loo dhan libax baa tahay alla libaxsana libax dhalay wiil buu aba ya waxa lagu oranaya looma baahna libax ma aha waa in la yiraahdo qurun baa tahay dadka ka fadhiiso marka mawduucan waxaan u qaatay waxa weeyaan kaliyeeta dhowr qodob Soomaalida inay fahanto marxaladii noocaas ahaa ninka doonaya inaan ku noqono waad khaldan tahay ninka microphone-ka noocaas iyo durbaanka noocaas tumaya waad khaldan tahay ninka sidoo kale cid khaldan oo dawladda ahun waan iska daba soconayno waa nin fiqitolkii kama janna tago oo waan daba soconayaa un leh war daba soconine isagana inuu godka ku dhicine adnaha kaga daba dhicine soo qaba shaadka ninka oo dib u soo jid hadduu ku diido qaysho yaa tolo ayay dhahday sida Soomaalida haddaad ninka wax u tarayso marka ha ku qabsooma isaguna laakiin taana looma baahna in qofka loo daba socdo Soomaali marka waxa loo baahan yahay in dibinta isugu tashato Ethiopia tashi guudna inay lahaato tashi gaar ahaanna inay lahaato mawduuceena waxaan soo qaatay waa sida Ethiopia cid walba gooniba u tashanaysa marxaladda maanta aan ku jirno iyo iscunkan iyo isku daba noqodkan wax iska kan bixinaya maaha war Ethiopia marka qaarkood waxay u midowdaa Soomaali oo dhan bay u midowdaa kolka waxa loo baahan yahay Ethiopia noocay doontaba iyo arrimaheeda wax la saadaalin kara maaha inagoo doonayna Ethiopia inay wada joogto oon taas saadaalinayno haddana haddii Ethiopia xaraga la isku toltolay uu damco inuu kala tago inagu iskuma xajin karno kolka waa inaynu qorshe kala haano sidaama qorshe gooni ay leedahay cid walba qorshe gooni ay leedahay mid guudna way leedahay waxa loo baahan yahay marka inagu Ethiopia inaan ku dadaalno inayna burburin inay wada joogto inagu kaalinteena inaan ka soo baxno sidoo kale deegaankeena inuu inoo dhowrsanaado dadka waxa yar moodaa inay iskaga laaqan tahay Ethiopianimada iyo Soomaalinimada Ethiopia waa magac waa dadkii wajiga madooba ama diirka madooba waa dalad markaan hoos tagno marka ninka oramadu isagoo orama abu Ethiopian yahay dalada aan hoos tagayna marka kama dhigna inagu Soomaalinimadeena intaan meel iska dhigno identity baan leenahay waa inaan ilaashano marka inagu Ethiopian u xuquuqdeena ilaashanayna inagoo 100% ninka oramaduna uu orama yahay hadana Ethiopian yahay inagu Soomaalnimada inta halka iska dhigno Ethiopian kaliya taanu nahay Ethiopia way kala baxbaxdaa hadana waa kala deegaamo waa kala qoomiyado sidaamada kulkii sidaama sheegata adu maxaad sheegan waxayna Soomaalnimo sheegata aduguna kolka wax loo baahan yahay wax garadka dadku in ay qofka xun la yaabaan oo meel iska dhigaan tareenkan Ethiopia in la garan karin meesha ku dhamaanayo qaabka aanu raaci karno inaan ka fikirno siyaasiyiinteenu inay noqdaan kuwa ummadda u danaynaya kuwan araamaha hadda jooga waxa loo baahan yahay in ay madarka kaga doodaan danaha Soomaalida ma aha inay noqdaan inaga nagu soo jiirayaan kuwa laftoodu inkastoo aniga aragti ahaan qababa 60% kuwii ahayd in lala doodo dadka laga qabtay laftoodu weeyaan badankoodu waayo halka kama badoodi karaan waxay ka doodayaan ma garanayaan they don't know ma garanayaan buugaagta horta aliya waxa ku qoran ma fahmi karaanba qoraalkan xarfaha inay eegtaan mooyaane laakiin ideology-ga iyo waxa ka dambeeyay iyo waxa bari ku soo bixi doona inta saadaalin karta ee fahmi karta waxa maanta hor yaalla mooyaane bari waxani keensan karo wax halkan ku qoran macnahan markaad fahanto waa inaad garan karto bari tola restriction ka hor imanaya
waayo siyaasaddu waa waxa ugu adag ee dadka limit gareeya weeyaan siyaasadda maanta aadan sixisan nooceeda un baa kula socon doonoon ku factirsan doonoon haddaad marka xilliga un tiraahdo alla tallaahi maalintii aasa war maalintii maahe maanta markaad liqdo eed qaleylka ku liqdo berri toole ma bislayn kartid marka inaga bisleeya waxyaabo fara badan intaad bislaysaan wax bisil dadka u keena markii hore dadku doodayay dadku wax iska bislaynayay maynan iska bislayn isagoo qaydiina un baynu wada laqlaqinaa marka haddana dibti haddaad leedihiin waanu soo qaaxinaa oo waxyaabaan iskeer waxaynaynaa bal at least nidaamka doorashada iyo qaabka u dhacayo iyo saydadka doorashada iyo waxyaabaha bulxaya fara badan dadka doorashada laftooda loo tababarayo ee hadhow waxyaabo fara badan baa jira nidaam fara badan oo la isku khaldaa jira marka bal waxyaabahaas iyo xuquuqaha qaabka ay u yaalaan imanka haddaad ninka ugu sarreeya dawladdeena aad weydiiso xisbigan EPP iyo siyaasadihiisa wallaahi billaahi tallahi inuu kaaga jawaabi karin kama jawaabi karo kuma sharaxi karo haddana waa ninka soo qaatay ee seminaarka ku qabanaya war bal ninkan seminaarka ku qabanaya ee kula waxbaan ku barayaa ee haddana aan kaaga jawaabi karin su'aal yar waa dhibaataynteeda leeg marka waxaan leenahay bal waxa aad dadka ka dhaadhicin doontaan soo qaata oo la imaado oo soo koobiyeysta oo koobiga intaad inoo soo badisaan dokumentiga ururkaasi uu leeyahay hal shakhsi oo haya ma jiro xiroosaadkiisa waxay maaragteen ma jiro dokumentiga waxay maaragteen ma jiro bal dadka waxna laga dhaadhiciyo maxaa loola cabsanaya oo loo qarinaya marka balinta doorashada ka horeysa haddaan rabno ururkan inaan doonano dee aynu aad u fahanno aan iska bislayno oo kadib siyaasadihiin ugu hagayo intaynu calaacali lahayn aan hadda iska bislayno marka mawduuceena waxaan u soo qaatay in barnaamijka noocaasa iyo Soomaali maanta waxa la gudboon iyo qaabkan kala daadsanida in laga baxo Soomaali in isku tashato wallahi billahi haddaynan isku tashanin maanta ka doqonka ah ee koobka shaaha eeganaya ee kolba dhisaba ku siyaacaya kolba waraqaha sii qaadaya ee kolba wax sheegaya berri toole isagoo lug laga gooyo oo dhutinayo iqaad la inuu iman doona maanta nin fara badan dad fara badan oo ordaya annagu ujeedadeedu ma aha waxa jira inaan dumino war waxa jira inuu wanaagsanaado un baan rabnaa mid in la fahmaa fiican wixii inoo wanaagsanaadan waan ka marxati kacaynaa wax wanaagsani waxa weeyaan waa nabadda iyo maanta in anigu halkan aan fadhiyo oo gurigayga anigoo jooga aan dawladda wax ka sheegi karo dhaliishada sheegi karo waa arrin weyn alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leenahay had iyo jeer waa inaan xusno nimcadaan haysano lafteeda haddii xusin dee waa laynaga daadani marka nimco fara badan baan haysanaa laakiin wax fara badan baa dhiman wax fara badan oo khaldan baa jira kuwa khaldan un baan had iyo jeer doonaynaa in la toosiyo mooyaane waxa wanaagsan hadda jira ma daadinayno marka ka doonaya dhiisheer caanuhu inoogu jiro inuu inaga daadiyo nabadda inuu inaga daadiyo wallaahi billaahi adoo dhutinaya berri toole un baad haddana ani iqaad dhihi doontaa marka berri toole iqaad intaadan dhihin hadda soo noqo war Soomaaliha isku tashato Soomaali danta guud ee Itoobiya iyadoo ilaalinaysa danaheeda gudaha ka midowdo tafaraaruqa la iska daayo war dadka culimada waxa loo baahan yahay wax laga dhageysto wax garadka in wax laga dhageysto siyaasiga ninka caafimaadka qaba in wax laga dhageysto cid walba in la dhageysto fikirkeeda Soomaalidu ma kari karto laba nin oo wacdiyaysa labadaba inay dhageysato waxay ku dhihi ma taqaana markay masaajid ka soo baxdo ninkii qolam u ahaa si fiican biinoo wacdiyay kolka tiraahdo waa reehbel ma wuxuu sare gelin caloosha moogtay maxaa ka galay bal isaga ninkan wacdigiisa muuqaata kana muuqaato waxaad garanaysaa markaa wacdi inuu ujeedadu ka ahayn waxay koranaa wakiina macdiye maxay waa ama kan buu ahayo labada sheekh waa in wacdiga weyn uu dhageysan karto kadib nin walba waxa fiican ka qaada adigu isku darso markaa wado fiican ku hagaag mawduucana intaas ku soo koobina